الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا ليال ورأي وحي نسود الدار منا إلهي عبسديسة تاسبا لقول لبانيا الدنيا ذي آخرة لقول لبانيا إن إلهي كعبسنه وكد ذاله عبسد إلهي سبحانه وتعالى أي كسب سنته خطبته الأمن والأمان وحل إله ونبت قليد وياه نبت قليد ولا ليال وحيته النعموين كوجوا وين يا الدنيا ذن لينقصي يا آخرة بقى وحوي يقفكم أما مجتمع وحكونه ليهي وكل غيهي وأنا أذكلي نذكلي هدي لوايه وحلالي وحيك الصهري أرمينا ويحمانا يعني نعمة الإسلام مركز لوسيه نبذكلينا لوجود ضره وتليوم كأنا هذا ليسه وحوي والوجود مياه الدنيا دي نبذكلي يده وحيلا هاي نعموين هذه عادت ربنا وهي كم تاي ساجدوا إن يعمرمان oo lagu cibaadeysto iyo nolosha inta ka sii hadhay oo kala dhan oo camiranta hadii kale lama helayo intaasi iyo wax ka badan ba lama helayo waxay u baahan tahay marka nabadgelyada walaalayaal in laga fiirsado markay muddo joogtaba dadku waxay hadidaan oo ay marka yaani maaragtay ay fudaysadaan nabadgelyada dabeedna waxa ka dambaysa nabadgelyada darro nabadgelyada darradu waxay markaa dhaxalsiisana waa wax markaa misalan aan cidnaba looga sheekaynaynin waxa ay markaas nabadgelyadu tahay Suuriya aan weydiino waxay nabadgelyadu tahay aan Ciraaq weydiino waxay nabadgelyadu tahay aan Tunis weydiino waxay nabadgelyadu tahay aan Yemen weydiino waxay nabadgelyadu tahay aan Shiishaan weydiino aynu Jazaa'ir weydiino aan Suudaan weydiino Soomaaliya aan weydiino Ukraine oo maanta gubanaysa aan weydiino walaalayaal waxa weydiisan dadka idinka waaweyn ya halkan aynu joognay wixii shalay ka dhacayay dhalinyarada maanta ilaa 30 jirka ah ma ogeyn wixii halkan ka dhacayay shalay ma ogeyn ay dheen ama 88 markay ahayd halkan wixii ka dhacayay lama oga in badan ma oga mala loogama sheekaynin dadka marka yaani ay la fududahay nabadgelyadu waa wixii inta ka sokeeyay ee kacay dadkii kacay ayay la fududahay waxa halkan ka dhacay yaani maaragtay nabadgelyada darrada ka dhacday halkan oo magaalooyinkan camirana iminka joogtaan ka dhacay Burcay Hargeysa iyo kuwa kale markaas Berbera iyo kuwa la midka ka dhacay waxay nabadgelyada darradaas dumisay camirnaantii dalka ayay dumisay ilaahay wuxuu yiri tusaale inoogu soo qaatay qaryo qarya dad qaryo deganaa oo markaa yaani maaragtay nimcaysnaayo amni iyo nabadgelyo haystay oo arsaaqduna dhinac kastaba badiyo bariba ay uga imaanaysay nabadgelyadii ayay haysan kari waayeen dabadeedna ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu uga abaalguday faadaaqaha Allahu libaas al-juu'i wal khawf wuxuu u geliyay huga gaajada iyo cabsida ayuu u geliyay annaga kamid ahayn kuwii huga gaajada iyo cabsida loo geliyay halkan waxa ka dhacday markaa guryahani waa dumeen masaajidadani waa dumeen wadankani waa dumay waa laga yaacay nin waliba intii marihii uu gashanaa qaar baa kabii ka yaacay oo haleeli waayay inta kala gashanayaan waxa dhacday markaa dadkii dahabka haystay ee dahabkii inay ka yaaceen oo intay shumacyada hoostooda geliyeen ay yaani haleeli waayeen inta dahabka la qaadanayo xal maranaysa wixii kalena haday raashin tahay haday yaani maaragtay dhar tahay haday markaa gogol tahay waxa laaliyo wixii halka camirnaa waa laga tagay walaalayaal waxa looga tagay nabadgelyo darro ayaa looga tagay waxa halka dhacday ninka halkan reerkiisa qaxiyay مثلا كاريون كوكحي alaab yaro marka ay wax ku cunaan kariyoon buu ugu qaaday waxaan garanayaa nin wadaadho igu soo maray meel halkaas tuulaan deganaa joogay markaas
oo markaas yani maartay ku qixiye karyoon wuxuu ku geeyay magaalo la yiraahdo Habuura inta garanaysa Habuura waxay ka shaysaa xuduudka ay in badan ka shaysaa halkaas uu karyoonkii ku geeyay sidoo maalinba meel la sii maartay ugu sii marka dhaxay marka waxa weeye rag baa marka caruurtii iyo dumarkii ka cararay oo marka xamili waayay oo dabeedna caruurtii iyo dumarkii lagala haray xalalaayo iyo wax markaas ilcaba waxa weeye marka walaalayaal nabadgelyo darradu waxay xumaysaa oo fasaadisaa wadanka ayay kharaabsaa nafaha ayay marka baabiisaa marka waxa loo baahan yahay nabadgelyo si ay u timaado dadku inay ilaahay ka cabsadaan oo marka ay shariicada ogaan oo ay marka yani dadka tarbiyayaan oo daacadda iyo alla ka cabsiga lagu dadaalo oo ilaahay la baryo oo marka la fahmo qiimaha ay nabadgelyadu leedahay la fahmo dii la fahmi waayo si yar bay marka ku dhaafaysaa nicmada ilaahay haddii kale ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dabrayaa oo marka waa ku haynayaa haddii kale wixii hore u dhacay ama hareerahaagaba maanta ka dhacaya ayaa dhacaya saawadeed nabadgelyadu innaga ayaa u baahan iyadu inooma baahna maanta waxaa loo baahan yahay mabda'a rabbaaniga ah ilaahay noo soo dejiyey inaynu ku mintidno diinta ilaahay qabsanno waxaa dhibaato noqotay oo markaa yani afalaa yarawna annahum yuftanuuna fi kulli caamin maratan aw maratayn miyaanay arkaynin sanadkiiba 2 jeer in la imtixaamayo ama mar ama laba la imtixaamayo waxaa weeye imtixaankaas wuxuu ka imanayaa waxa weeye kitaabkii ilaahay baynu ka boodsannahay aan walba waxaynu ku ballan qaadnaa oo aynu nahnaa ilaahay kitaabkaaga ayaan isku xukumaynaa haddaad gumaystaha naga kiciso cidaanaan doonin haddaad naga kiciso dabadeedna markaas aynu markaa ideen helana halkeennii hore ayaynu ka miisnaa halkii hore ayaa laga miisayaa marka waxa weeye waxaynu dooranay labaynu isu guurinay labayaynu isu mehernay labada la isu meheriyay waa maxay waa islaan xun oo dabeecad xun oo yani maaragtay khariban oo ba'an iyo oday xun oo isaguna makaaraho khaayinaho siyaasad badan oo maxay yihiin islaantaay odayga la isu meheriyay waa islaan qabyaalad la yidhaaho iyo oday dimuqraadi la yidhaaho labadaasaa la isu meheriyey balaaya ku dhacday ma heshiinayaan maalin walba tibta iskula kacayaanoo waxay doonayaan inay markaas yani ay islaayaan ciddii heshiisiin lahayd oo garniqi lahaydna ma joogto marka waa qawdaa markay iska saarto inay maalin walba iskula keen dul dhacaan oo aynu inaguna ku rafaadno weeyaan labadaa islaantaa xun ee markaa qabyaaladda la yidhaaho iyo odaygaa dimuqraadiga la yidhaaho labadaasaynu kala furno mooyaane u malayn maayo si u islaaxi doonto ilaahay baa og waxaan waxba ahayn baynu wax moodno marka walaalayaal ilaahay aynu ka baqano amniga iyo nabadgelyada innaga ayaa ku nool masaajidadu camirmi maayaan madaaristu camirmi maayaan la cibaadaysan maayo xajka la tegi maayo la soomi maayo yani maaragtay sadaqada la bixin maayo guryuhu markaa ma dhisnaanayaan wadooyinku ma camirmayaan wadanku waa burburayaa waa halaagsamaya marka waxa weeye ilaahay intaynu ka baqno aynu markaas dub isugu noqono oo aynu iswaanino oo dadka markaa yani maaragtay ahlu sharka ah yani aan ka hortagno ahlu sharku markuu yani maaragtay taabaga qaadaba ahlu khayrku waa gaabiyaa marka waxaa loo baahan yahay ahlu khayrku inuu ku kaco ahlu sharka oo aynu markaas istifaacna ayaa walowlaa dafcu llaahi nnaasa bacdahum bibacdin weeyaan aynu markaa iska ilaalino ahlu sharka oo aynu ku kacno oo markaa aynu ka hortagno ayaa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna markaa ma dulmiyo waxa aynugu dhacayaana markaa xaggeenna waa waxaynu galabsannay weeyaan haddii kale waxa weeye maalin walba waa laynooga darayaa un haddaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo noqon weyno ilaahay markaynu usoo noqonno aynu u toobad keenno ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu nicmada ilaahay garanno nicmada ilaahay markaynu garanno nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam man asbaxa aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadihi cindahu quutu yowmihi fakaannamaa xisat lahu dunya bixadaafiiriha qofku intaa wax ka badan inuu doono maaha qofka waa bariista isagoo yani sabadiisa ku maaragtay aamina ku ammaan ku haysta oo jidhkiisuna fayow yahay quutalyowmkiisana haysta kaannamaa xisat lahu dunya bixadaafiiriha xadiiska imaamu tirmidi
يا ابن ماجه baa warinaya waxa weeye adduunyada iyo waxay caga ku jiidataba waa la siiyay inuu wax ka badan inta doona maaha xiyaa alla kugu daro mooyaane waa inaad adigu wax kala doonin weeyaan amnigu waxa weeye walaalayaal waa shayga ugu horeeya ee ugu mudan weeyaan ugu mudan islaamnimada iyo nabadgelyadu ma kala maarmaan alladina aamanu walam yalbisu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun ilaahay wuxuu kuwa iimaan la yimi oo iimaankooda aan waxba ku barxin shirki iyo wax la mida ulaa'ika lahumul amnu kuwaasa nabadgelyada helaya wa hum muhtadun ayaga hanuunsan oo helaya waxa loo baahan yahay markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu u noqono nabadgelyada markaa inaynu ku mintidno baa loo baahan yahay oo aynu u kacno sidii aynu markaa yani maaragtay nabadgelyadu aanay markaas inoo dhaafteen inaynu u kacno ayaa loo baahan yahay wala yansuranna allahu man yansuruh cidda ilaahay u hiilisa diintiisa ayaa ilaahay u hiilinaya aladiina imakannaahum fi lardi arlada marka loo dhiibo aqaamu salaa salaaday oogayaan wa aatow zakaa sakaday bixinayaan wa amaruu bilmacruuf wanahu can ilmunkar wanaagga isfarayaan xumaha ayay iska reebayaan in dadka wanaagga la faro xumaanta laga reebo amni darrada laga reebo kuwa carqaladaynaya amniga markaa yani maaragtay lawaaniyo yani maaragtay ilaahayna laga baqo sidii maaragtay haabiilba uu qaabiil uga baqay inuu dilo isagoo markaa leh yani maaragtay anigu ilaahay baan ka baqayaayo ma ihi mid gacanta kuu soo taagaya ayaa loo baahan yahay qofka mu'minka ahi inuu noqdo oo walaalkii aanu markaa yani isagu gacanta u taagin hadduu doono isagu ha u taago aakhirana markaa ha isku darsado dembigiisa iyo maaragtay ka walaalkii baa isku darsaday sidaas baa loo baahan yahay oo labadaa mowqif ee qaabiil iyo haabiil yani kee baynu qaadanaynaa waxaynu qaadanaynaa kii haabiil baynu qaadanaynaa waayo ha lagu dilo walaalkaa hadduu markaas isagu taa doorto laakiin adigu walaalkaa ha dilo waayo waxa weeye ilaahay baad ka baqaysaa isagu markaa dembigaaga iyo kiisaba ha isku darsado naartana sidaa ha ku galo adiguna aad markaa ku badbaadid ila gacankaa xaq daran baa ku dishay waxaan markaa ku celcelinaynaa walaalayaal waxa amniga la yidhaaho waa in la fahmaa qiimaha uu leeyahay oo aynu markaa u kacnaa weliba yani waxa la bilaayo daba la qabto male daaman la qabtaa bay leedahay maanta waxa weeye social mediaha waxyaalaha la isu marinayo waxa weeye fafaalo xun bay sheegaysaa markaa in loo kaco amniga iyo nabadgelyada laga shaqeeyo dadka waxgaradka ah waayeelka iyo culimada iyo dadka waxgaradka ah xilkaska ayaa loo baahan yahay waayo wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa yani fitno ka baqabaa ilaahay fitnadaasu kuwa sameeyey oo keliya yani maaragtay ku ekaan mayso dadkuna markaa waa dad khayrka fura oo sharka xidha iyo dad markaa yani maaragtay khayrka xidha oo sharka fura marka dadka markaa furaha khayrka u ah inaanay caajisin ay kacaan baa loo baahan yahay alaa wasalluu wasallimuu id amarakum allahu tacaala id qaal ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima allahuma salli wasallim calaa cabdika warasuulika muxamed kama sallayta calaa ibraahima wacala aali ibraahim إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا وول علينا خيارنا واكفنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أغثنا غيثا هنيئا عاما صحا طبقا مجللا دائما إلى يوم الحاجة اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانذين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله وأقم الصلاة